marka dhaba ka dhigi jiray marka gelaya marka biyaha laga soo saarayo ee wadaamaha la sido ayaa ciid la maraysaa qoyda dabatana waa siiban jiro rag dhulku jiray oo jarjarada imika ay leedahay meel lahaan jiray meel lahaan jiray wax soo walba la socotay jarjarada way ka dambeysay waxaan jiray ciid lahaan jirtay sida taas oo kale lahaan jirtay taas ahaan jirtay waa qoy jirto rag waa siiban jiray dhamanka dhulka lagu dhufan jiray wadaama biyo la dhici jiray sidaas marka kula waxay dhaman dhigay oo kan dhamanka la dhigaya oo xoolaha laga waraabin jiray wadaamana lagu waraabin jiray qisooyinka ceelkan ka dhacay hal iyo laba maxaad ku xasuusataa waxaan ka xasuusaa qisooyin ceelka dhacay dee horta qisooyinka ceelka dhacay waxa kamid ah maroo biyo laga waayo oo kowda habeenimo la sugu yimaado oo la qodi jiray oo rag u dagaalami jiray marka qisooyin dagaalami jiray waa lagu dagaalami jiray ninku biyaha yar oo u maaxdo markuu ceelku maaxdo ilaa uu adhigiisu ka cabo mid kale ma soo gali jirin ha dagaal ka dhici jiray waxa soo mari jirtay oo kale in marka dadku rag galayo tooreeyo ay laga qaado san la isugu dilin oo loo sameeyo guddi ceelka aan dadku dhawac ku gaadhin ninka tooriga xidhan sabab markuu xanaaqo aan dad tooriga qof ugu dhufan ee laga qaado wixii uu sito hub ah lagu xareen jiray qasnada ka dhaco kale insha Allah taala ceelkan qasada ka dhacday labaad waxa weeye wuxuu ahaan jiray ceelkaas markuu ahaan jiray dadka maatadu waxba ka waraabsan kari jirin in rag wax ka waraabin jiray waxa ka dhici jirtay oo kale ceelkan xooluhu biyaha ka cabaan ceelku wuxuu ahaan jiray biyihiisu qurmoon oo biir bay ahaan jiray xooluhu baa cabi jiray dadku biyo wada doonan jiray weelkan baa lagu xanan jiray weelkana safaayada laga damarin jiray marka ceelku qisooyin fara badan buu lahaa deewayaasha iga waaweyn in dhalinyarana ahay waxaan ugu soo gaaray isagoo miina ah oo laga waraabiyo miinada micnaheeda noo sheeg miinadu ma tii qarxi jirtay ama soo mid kale ma aha tii qarxi jirtay taas dadkeeda taaysa tan waxa weeye biyahaas la kala miinaysanaya ana saacada loo kala horeeyo waa sida loo kala horeeyo exactly aad baan idin salaamayna saaxiib albaabta waxaanu ku sugannahay ceelka Dhabandhige iyo degmada Dhabandhige wada salaamayna